هيا ها داير على سو وحو سو قبسداي gabadhii yarta ahayd oo maslaxa ahayd صح gabar yar oo maskiin ah oo Afrika joogto oo gaajaysan oo $100 iyo $500 iyo marka loo tuuro advantage laga qaadanayo kowde صح Miss Wall laba kale buu soo qabsaday mid walbaba wuxuu weydiiyay maamuliyeen maxay ku xun tahay maamuliyeen maxay saan ku tahay maamuliyeen maxay saan ku yeeshay mis ay maslaxa waxaan maqlayay iyadoo la Miss Wall maamuliyeen waa saan waxba aanu ku soo qaadi maayo gabdhahan yaryarka ah صح oo masaakiinta thank you oo masaakiinta waxba kama soo qaadayo صح laakiin waxaan kuu sheegayaa intuu orday markuu qolkii soo dhameeyay buu wuxuu galay boqor Amiir ma taqaanaa wiilka habar jeclo oo injineer Amiir ku soo gali jiray waagi hore Facebook Amiir dadkii hore Facebook-yada isla ahayn oo annagu aan ka soo horjeedi jirnay daahir calasow oo karbaashi jirnay صح gabar daarood buusan dhaafi jirin mid hawiyuusan daahir dhaafi jirin mid isaaq buuna dhaafi jirin mid gabooyo xamti galgacalkan maanta la ordaysa buuna dhaafi jirin gabar u dhaafi jiray malahan gabar uu ku shaqaysto mooyaane gabar kale oo Soomaaliyeed daahir horta ma dhaafo markaan factiga ku sheego صح qolkii Amiir buu soo galay anigoo qolkii Amiir ku jiro asagoo ku jira anigoo iska wareegaya muukulaashu ha miiraafta meelaheeda anigoo iska miiraafaa mar anoo miiraafayaan waxaan arkay qolkaano Amiir saaran yahayo ninkaanu saaran yahayo aniga la rifahayo asagu marka Amiirku marka hore la ima rifayn aniga waxba laga sheekeynaa waxa la rifayay ninka la yiraahdo magaciisa ninka la yiraahdo Shaakir Ciise buu rifayay dameerku صح marka wuxuu yaqaanaa intuu qol isaaq leeyahay galo inuu qof isaaq caayo intuu qol daarood leeyahay caayo inuu qof daarooda ku caayo daaroodka iyo isaaqu waxa weeyaan saaxiibtinimaday qadariyaan marka hore oo dhan waxba uma fiirsadaan ilaa dib hadalku maartay uga dhaadhaca mooyaane marka hore qofka way ka xishoodaan waxay u qabaan in la iska soo horjeedo kaliya inay u qabaan ninkaanu inuu futada tima ku leeyahay oo ciriq baas ku jiro oo dee qof la gumaysta iyo dameer la rarto iyo waxaas inuu yahay anigu hawiye u caayi maayo laakiin dameer calasow iyo anigu meeshan kala aadi lahayn inkastoo hadda dhifiq ugu yiri aniga ii daayo oo aan xoogaa gabanayo gabdhaan aan gabar iska dhigi doono ayaan gabar baan iska dhigaya ilaa waa niboobay inaan xoogaa futada dhulka dhigo oo raggu arkaan inay ragga iska celin karaan anaguna aan huruud u marsado oon cilaan u marsado oon gabdhaha dhaho cilaan kaana marsaday huruudaana marsaday ka sheekeeya inaan dhaha mooyaane qolkii wuxuu yiri naag gaala ah oo gaalowday oo rasuulka cayday waxaasuu ku marmarsiyoodaa moogtaha oo saan yeeshay oo xagga ah oo dad reemaha u qaadanayo oo dad taqaanaayo ay leeyihiin qabiil bay nala tahay oo Amiirku marka nin xun ma aha laakiin maba uu fahansan marna waa ka baxayo wuxuu soo saarayay screenka marna asaga soo galayay waxa dhacday meeshii markuu cabaar ku socday duqbulow baa la soo qabta asagoo igu socda anigu meeshii baan wax qorayaa duqbulow nina intuu ku soo dhaafo ku jiro kuma soo dhaafaan ku iri duqbulow waa nin adeerkaya waa wiilan eedow ahay duqbulow in adeerow ma meelaad ku jirtid baa la igu caayaya casar baa la gaaray biyo waa degay af markaan saa u soo dhigay buu degay duqbulow waa ka degay Amiiro maano caruur raashiq saxaaqa haysta baa la igu caayayaa beejkaaga Amiir wuxuu yiri ma u maqlaynina waa ka tagay oo soo noqday oo markaan soo laabtaa waxa dadkii hoos oo dhan baa kacay maama milyan soo qabo wuxuu caayaya waa maama milyan ta sheegaysaan maama milyan waa soo laabtay iyadoo la igu hayo maama milyan meeday markuu aan arkay Amiiro waa ikana isoo qabaa iri isla markiiba markuu saa ii soo qabtay dameer calasow dho waa dhacda sidii caadana ka soo dhacday buu dho yiri oo dheebar ku baal kitaambooni ku dhacday buu dho yiri waa dhacaan ku iri samaha